xilligan oo kale looga baahan yahay dadku wax u qabanayaan xilligan oo kale wax looga baahan yahay markay dadku roob hele oo barwaaqaysto inay deegaanada tagaan oo yiraahdaan haddii alla ka dhigo dadka xoolaha ka mashquuliyaan oo kii beeraha ka mashquuliyaan oo haddii alla ka dhigo lacag yar ay ula tagaan oo yiraahdaan haddii alla ka dhigo cash baan idin siinaynaa iyo barkacyal baan idin sameeynaa waxaas waa dadka wax dhaqanka ka baabiyay degmo baa si gaar ah u saameysay oo xad wada leh waa degmada Caynabo ee magaalada madaxda gobolka Saraar waa degmada Garadag iyo degmada Ceelafweyn dhammaan duruufta abaareed way iyo daaqsimeed way ka siban yihiin baaquna waa kooda wajahay dadkii wuxuu galay inuu guuro oo aan haddii alla ka dhigo si aan qayr caadi u guuro hawd inuu dabada dhigo dadkii heer uu gaaray inaan wax nala soo gaara iyo abaar baan haysa aan oranay dadkaasi ay shidaal u doonaan ay baabuurta wixii xoola u rarmi karay ay ku raraan hawd baa la aaday dadka qaar bay Itoobiya galay oo haddii alla ka dhigo inta gaashaami ugu sokayso dadka abaartu hayso waxaan meel kasta joogaan iyo gaar ahaan kuwa aan matale hadda u hadlaynaba waxaanu kula dardaarmaynaa awalan in ay roob doon tukadaan hay'adaha caalamiga ah kuwa jaan yahay iyo kuwa maxalliga ganacsatada dalka ee dadka ka shaqeystay dadka abaartu ku dhacday ay ka mid yihiin kuwa u shaqeeyaan ee adeegyada faraha badan la gaarsiiyaan ay baaqayagaas uu ku waajahan yahay in qayladhaan taa haddii alla ka dhigo sida loo qaato la diro gudiyadii la diro la shaqeysay dadka waxa weeye biyo la gaadho raashin la gaadho wixii baad la helay la gaadho dadka meesha degan imika guuraya dad ka fara badan laba laab ayaa ku soo guuray oo yimid noo suuro galiyaynaano haddii alla ka dhigo wixii duruufii aanu xogteeda helnay aanu bulshada la wadaagno waa baaq qayladhaan ah oo baaqii ugu weynaa la diri lahaaya oo abaareed abaartu waxa weeye imtixaanaad rabbaaniya weeye laakiin wax ka qabashadeeda baa haddii alla ka dhigo muhiim ah hadba waxa weeye in waajib iyo xil weyn la iska saaray intii la kari karayo ee qof bini aadam qaadi karayo baaqaygaas wuxuu ku waajahan yahay dawladda xukuumaddu ku waajahan yahay dawladda ka mid baan nahay xukuumaddu ku waajahan yahay hay'adaha caalamiga ah ku waajahan yahay iyo kuwa maxalliga ah ganacsatada dalka ee dadka ka shaqeystay dadka abaartu ku dhacday ay ka mid yihiin kuwa u shaqeeyaan ee adeegyada faraha badan la gaarsiiyaan ay baaqayagaas uu ku waajahan yahay dhulka xildhibaan Saalax Maxamed Diiriye sheegay ee waxa weeye gobolka Sool waliba khaasatan area Saraar iyo gobol Sanaag degmooyinka Garadag iyo Ceelafweyn abaar aad u ba'an oo haddii alla ka dhigo sidii Ilaahay looga bartay xilligan oo kale aan la filaynin ayaa ku dhacday dadkii wuxuu galay inuu guuro oo aan haddii alla ka dhigo si aan qayr caadi u guuro hawd inuu dabada dhigo abaartu sidoo kale waxaa xogaha aanu helnay ilaa xalay toole intii u dambeysay ay sheegayaan in xitaa xeebaha bari ee gobolka la yiraahdo Saaxil xeebaha qaar xitaa inay abaari ka jirto abaartaas aad iyo aad baa dadku uga dayrinaya dadkii heer uu gaaray inaan wax nala soo gaara iyo abaar baan haysa aan oranay dadkaasi ay shidaal u doonaan ay baabuurta wixii xoola u rarmi karay ay ku raraan hawd baa la aaday dadka qaar bay Itoobiya galay oo haddii alla ka dhigo inta gaashaami ugu sokayso tagay abaartaas waa abaar haddii Ilaahay baynu weydiinaynayo gacmihiisa lagu baahi baxaa laakiin xukuumadda waxaynu soo jeedinaynaa oo baaqaa ugu adkaynaynaa si miisaan leh inay fariinta u qaado ka falceliso waxa weeye guddigii abaaraha ee madaxweynuhu saaray iyo dhammaan hay'adaha dawladdu in qayladhaan taa haddii alla ka dhigo sida loo qaato la diro gudiyadii la diro la shaqeysay dadka waxa weeye biyo la gaadho raashin la gaadho wixii baad la helay la gaadho meelaha haddii alla ka dhigaan abaartu ka jirin wixii baad laga helayna looga qaado baaqayagaas waa baaq aan waxa weeye si yar oo sahlan ku iman waa baaq haddii alla ka dhigo xog badan ku dhisan waa baaq haddii alla ka dhigo taabanaya dadkii na soo doortay waxay ogtiin deegaanada markii abaaruhu dhaceen
qaarkood Ethiopia xitaa abaaru ka dhaceen ay ka dhaceen meelahaas meelihii lagu guuray bahay hawdka ay markay u guureen meelihii ku soo guuray bahay markii abaaru ka jireen waqtiyadii dhaweytoole hadduu alla ka dhigo dadka meesha degan imika guuraya dad ka fara badan laba laab ayaa ku soo guuray oo yimi de waxa weeye haddii biyahayd iyo haddii baadhayd boole la mariyay markaa waxaynu soo jeedinaynaa sidii dowladda iyo golayaasha iyo hay-adaha caalamiga iyo ganacsataduba ugu hagar baxeen markii abaaruhu galbeedka ka dhaceenna iyadoo hadduu alla ka dhigo abaartu aanay deegaana lahayn haybna lahayn waxa weye ninkii haleesho un dhib ku tahay waxaanu soo jeedinayaa in xil weyn la iska saaro dadkaygaa beriga joogaa qaylada ma yaqaanaan dadkaygaa beriga joogaa baahida ma sheegtaan waa laga xishooda anaga la yidhahdo qofku waa baahi baan haysta anaga halkaygaa waxay ka tahay wax laga xishoodo ninku hadduu alla ka dhigo hadday xoolihiisu dhimanayaan iyo hadduu isagu dhimanayo waxa weeye adkaysi buu muujiyaa marka waxaynu u baahan nahay inaan dadka adkaysi intay adkaysan kareen waa adkaysteen waa in xil gaara la iska saaraa degdeg meeshaa loo tagaa aad iyo aad baanu hadduu alla waxaan ku rajo weynaa in jawaabtaasi hadduu alla ka dhiga gaari doonta hay-adahay khusayso hay-adaha caalamiga halkan waxaa weeye dhaliilo badan baan uga jeedinaa dhaliisheedu walow aanu dib u dhiganayno xilligan oo kale looga baahan yahay hadday dadka wax u qabanayaan xilligan oo kale wax looga baahan yahay markay dadku roob hele ee uu barwaaqaysto inay deegaanada tagaan oo idhahdaan hadduu alla ka dhigo dadka xoolaha ka mashquuliyaan oo kii beera lahaa beeraha ka mashquuliyaan oo hadduu alla ka dhigo lacaga yarar ay ula tagaan oo idhahdaan hadduu alla ka dhigo cash baanu idin siinaynaa iyo barkacyaal baanu idin samaynaynaa waxaas waa dadka wax dhaqanka ka baabiiyey marka maanta waxaanu ka doonaynaa hadday gurmad iyo humanitarian jirto in humanitariankii maanta loo baahan yahay waqtiga loo baahan yahay ayaa dadka ay wax u tartaa baaqa iyagaas waa intaa hadduu alla ka gool ahaana waajib baa naga saaran wixii laga qayb qaadan karaya in laga qayb qaato shirgudoonka iyo golahana waanu wargelinay insha allah biidni illahi alkariim ilaahay baynu rajaynayaa inuu dadka abaarta ka qaado ilaahay baynu rajaynayaa inuu hadduu alla ka dhigo gurmad wanaagsan gaarsiiyo aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa idinkoo saxaafada idina ka qayb qaadataan oo fariintaa hadduu alla ka dhigo la fogeeyo ilaahay idamkii baaqaqa abaaraha ka soo baxaya kala duwan iyo dadka baahanna in waxa weeye codkooda meel dheer la gaarsiiyo aanu idinkana idinka codsanaynaa maanta waxaanu anayo xildhibaan mustafe oo laga soo doortay gobolka sool iyo aniga oo sanaag laga soo doortay aanu shirkan jaraa'id u qabanaynaa inaanu ka waranno xaaladda abaareed ee deegaanada ka jirta kadibna kan idhaahno wixii abaar laga odhan jiray deegaanada abaar xun baa ka dhacday aada xoolaha u saamaysay iyadoo weliba xoolaha uu bukaan u raaco waxay kaliftay deegaano aada uga fog oo duruuf ahaan aan la gaari karin in loo kala guuro isla markaana meelihii loo guuray aan lagu haysan daaq ku filan waxaa ugu sii diran deegaanada saraar gobolka saraar iyo degmada ceel afweyn degmada ceel afweyn waxaa looga guuray degmada Cerigaabo degmada saraar ama gobolka saraar waxaa looga guuray hawd runtii xoolahaas waa jilicsan yihiin xilliga abaartu dhacday xilliga xaalufku dhacay xilliga bukaanku bilaabmay waa xilli dayreedkii hadda ah oo dayr la waayay gugiina ay ka harsan tahay sidaynu ilaahay uga baranay waqti 6 bilooda marka iyada oo sanad badhkii ay harsan tahay ayaa xooluhu aada iyo aada u jilicsan yihiin dadka abaartu haysto waxaan meel kastay joogaan iyo gaar ahaan kuwa aanu matale ee hadda u hadlaynaba waxaanu kula dardaarmaynaa awalan in ay roob doon tukadaan inay ilaahay baryaan inay duruuftooda ilaahay u bandhigtaan isla markaana inay samirka kaashadaan xagga kaalmada dowladda jamhuuriyadda somaliland ganacsatada somaliland hay-adaha taakuleeya taakulooyinka bixiya caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah cid kastoo danaynaysa cid kastoo u damqanaysa cid kastoo wax tari kartaba in deegaanada caawimo degdega lala gaaro ayaanu codsanayna xooluhu waa jilicsan yihiin bukaan iyo xaaluf baa ku wada dhacay waana dhul durugsan waxay u badan yihiin dhul laamiyada iyo wadooyinka dadku xogtooda wada heli karo ka baydhsan bay u badan yihiin qaar dhul qorfaa baa ku jira dhul banaa baa ku jira duruuf adag ayaa naga hadalsiinaysa intii hore roobun baa la sugayay in wax isbedelaan baan sugayn dayr soo daahday inay inoo da-do baan sugayn laakiin xilligan waa xilli aan aamusi kari weynay bay noqotay aan ka hadlayno
waxaa wada qaba 3 degmo baa si gaar ah u saameysay oo xad wada leh waa degmada Caynabo ee magaalada madaxda gobolka Saraar waa degmada Garadag iyo degmada Ceelafweyn dhammaan duruufta abaareed way iyo daaqsimeed way ka siban yihiin baaquna waa ku wada wajahay